mahadsanide ku soo dhawaada wararkaanu idinka hayno bariga Afrika oo si toos ah idinka imanaya studio Kalsan TV uu ku leeyahay magaalada Nairobi. Wararkan waxay la socodsiinaysaa anigoo Igla Saalax. Wararkaanu idinka hayno bariga Afrika waxa kamid ah waxa magaalada Nairobi lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigay dhisme cusub oo ay ganacsato Soomaaliyeed ka hirgelinayso meel u dhow madaarka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Munaasabadana waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin caan ka ah dalka Kenya. faafaynta qodobkaasina waxay noo hayay wariyaheena Cabdixakiin Siciid. munaasabadani oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen ganacsato isugu jirta Soomaali iyo ajaanib ayaa lagu soo bandhigayay dhismooyin cusub oo laga hirgeliyay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya. Dhismahani oo lagu magacaabo Yasin Park View ayaa laga hirgeliyay agagaarka garoonka ay diyaaraduhu ka haadaan ee Jomo Kenyatta waxaana iska leh ganacsade Xaaji Maxamed Yaasiin oo kamid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliyeed. waxaa goobta ka hadlay mas'uuliyiin isugu jirta ganacsato, siyaasiyiin, culimaawidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo dhamaantood ku dheeraaday baahida loo qabay moolkani cusub in la hirgeliyo iyo sidoo kale adeegyada laga helayo. dhismahani cusub ayaa laga heli karaa hoteelo la seexdo, goobo ganacsi, goobo caruurtu ay ku ciyaaraan, masjid weyn oo lagu cibaadeysto iyo sidoo kale goobo caafimaad. Location. We all want to know where we are going to reside in, where will we live in, what is our proximities, and so on. And the Yasin Park View could have not been located any better in today's congested Nairobi nature, if I may say so. Alhamdulillah, mashallah, I think he has told us he wants to start this very important project. And alhamdulillah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless his project, his investment, because it's a very important thing for all of us, not just the Muslim community, but everyone in this place. Secondly, there is a perception in this country that the Muslims, because people see this kind of projects, there's a perception that we are taking over this town or taking over all the buildings. But in reality, I think we all know what we own in this town is not even 5%. markii ay soo burbureen mise aan soo burburnay ayaan dhihi lahaa maskaxdayna ay aad iyo aad u fureen maadaama dhibaato fara badan ay haysid hasi ahaatee ani waxaan shaahid ka ahay in ay ganacsiga na bareen haddaan nahay Kenya waliba Soomaalida Kenya. dhinacan construction horaan ma jiri jirin gated community buildings. maanta inta kale Nairobi ku taalo masaajidka quruxda badan ku dhex yaallo caruurta madrasooyinka dhiganayaan sidii dhabta ah magacayni ayay kor u qaadeen. waxaan leenahay mabruuk. ganacsadahani maalgeliyay dhismahani cusub ee maanta xadhiga laga jaray Xaaji Maxamed Yaasiin oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu ugu talagalay dhismahani cusub inay ka faa'iideystaan bulshooyinka Soomaaliyeed isla markaana aanay kala kulmi doonin caqabado ganacsi. dadka halka fadhiya oo odayaasha kale u badan madaxda sharafta leh vilooyin waaweyn baa la degan yahay umaleynaya apartmentskayga inay u baahan yihiin. laakiin waxa weeye in la invest gareeyo oo la xoojiyo fikradeen keeno anaga naga mid ah inaynu isugu wada tagno oo aynu yeelano magartay spirit of community oo community ayaa waxa wata aynu gacan wada siino oo aynu wada dhisano oo aynu wada yeelo. nin baa laga sheegay anagu neefkii muxuu ahaa caatada ahaa waa soo waday ceelkan keena inuu biyaha cabo isaga u taala marka anagu waa soo wada 10 sano waa soo waday waana dhisayaa haddii Ilaahay cimri siiyo waana wadayaa laakiin ka qaybgalkeeda iyo lahaanshadeeda waa waxaynu wada leenahay. munaasabad lagu xuseeyay maalinta haweenweynaha adduunka ee 8 Maaris ayaa lagu qabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi
munaasabadana waxaa soo qaban qaabiyay dhakhtarka Safeway Clinic ee magaalada Nairobi. Faafahinta warkaasina waxay noo haysaa wariyaheena Farduus Axmed Bedel. munaasabadan oo lagu xuseeyay maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka Safeway Clinic oo ah xarun dumarka lagu baxnaaniyo. Dr. Fardosa waa maamulaha xarunta Safeway Clinic oo ka warbixinaysa maalinta haweenka adduunka. waxaa kaloo goobta ka hadlay haweenkii ka soo qayb galay munaasabada. sanad waliba xilligan oo kale ayaa la xusaa maalinta haweenka iyaga oo haweenku ay u nugul yihiin xanuunka. hooyo la'aan adduunka waa abaar, hooyo la'aanteed laba noolaan karo. marka hooyadu waa farxad, waana soo dhaweynaynaa hooyooyinka jooga, kuwii dhintayna Allah u naxariisto. Allah inuu dambi dhaafo dhamaanteena. aad baanan horta ugu faraxsanahay dumarka xaafada baryahan gabdhaha aad iyo aad bay ugu dadaalaan. waxaan malaynaa ilaa 6 hablood ayaa sanadkan form 1 noo tagtay loo sabciyo hablaha. way jiraan qaar kale oo badan marka hablaha iskuulka ha lagu dadaalo hala dhaafo shaqaale xumo ay haysato inanta ay shaqaynaysa taahan joojino. guditaanka hablaha dhowr jeer baan ka hadalnay. guditaanka hablaha goor jeer baan aan ka wada hadalnay. marka guditaanka gabdhahana ha loo fiirsado. xuska munaasabadaha ku dhex jirnaayeen waxa xerada dhagaxley ee qaxoontiga dalka Kenya laga xusay maalinta haweenweynaha adduunka. munaasabadan ayaa waxa iska kaashaday hay'adaha samafalka ee ka hawlgala xerada qaxoontiga ee dhagaxley iyo maamulka xeradaasi. faafahinta warkana waxa inoo haya wariyaheena Yaasir Cabdirasaaq Xuseen. munaasabada tan oo ahayd mid si mugle loo soo agaasimay ina soo qaban qaabisay hay'adda Care International iyo maamulka xerada qaxootiga dhagaxley ayaa looga gol lahaa in lagu weyneeyo xuska maalinta haweenka adduunka oo ku aastaysan 8 bisha Maarso. ayadoo munaasabadaasi ay ka soo qayb galeen qaar kamid ah madaxda hay'adaha samafalka, waxgarad, aqoon-yahano, ururada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horeyntii waxaa madasha ciyaar dhaqameedyo kala duwan oo soo jiitay dhammaan madaxdii ka soo qayb gashay munaasabada tani ku soo bandhigay qowmiyadda Suudaanta oo kamid ah qowmiyadaha ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley. ugu dambeyntii madasha waxaa ka hadlay gudoomiyaha haweenka xerada qaxootiga ee dhagaxley Xabiibo Cabdiraxmaan Mursal. waxayna sheegtay in ay maanta tahay maalin aad ugu weyn ayna si farxad ku dheehan tahay ugu dabaaldegayaan maalinta haweenka adduunka. maanta waxay leedahay waa maalin aad qiimo u leh, qadarinta u leh, waxaana laga dabaaldegay leedahay dunida dacaladeeda kale kaliya halkan maaha, dadweynaha dhan ayaa laga dabaaldegay leedahay. It's also a very big day where I also commemorate a lot of things, a lot of news, a lot of challenges in this day. I also give hand to the mothers, you know, even the girls who are at home, so that they celebrate all of us and even the results will be good for us. marka waxay leedahay mid kaleeto aan maartay u diraayo dhammaan waxay leedahay dhammaantiin waan idin diraa. mid kale maanta waxay leedahay in badan baan u soo jiray qabanqaabadeeda waana maanta gunaanadkii waxaa weliba maartay ay leedahay aan hambali u diraa dadka halkan la joogo iyo kuwa xaafadaha jiro oo dhanba in maanta ay tahay maalin weyn oo nin walba meesha uu joogo oo maartay xafladani oo maartay kaligiis uu ku geliyo. Inshallah, I think for the next 5 years or 2 years we'll be in Somalia and that even our country will be graceful so that we celebrate the way we are celebrating today. marka waxay leedahay hadduu Ilaahay inoo idmo laga yaabaa 5 sano soo socoto in aan dalkayna hooyo Soomaaliya nabad ka dhici doonto aanu ku laaban doono ayaan rajaynayaa ay leedahay hadduu Ilaahay raali ka noqdo. si kastaba ha ahaatee maahan markii ugu horeysay oo munaasabada xuska maalinta haweenka adduunka lagu qabto xerada qaxootiga ee dhagaxley waxayna ku soo beegmaysaa xilli tacadiye kala duwan haweenka lagu geysto guud ahaan dacallada dunida. ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya ayaa baadigoob ugu jira xildhibaan ka tirsan baarlamaanka countiga Kiambu oo kooxaha hubaysan ee afduub u geysteen. faafahinta warkana waxaa mar labaad inoo haya wariyaheena Cabdixakiin Siciid. ciidamada ammaanka ee dawladda Kenya ayaa weli baadigoob ugu jira xildhibaankii baarlamaanka u metelaya deegaanka Juja Simaya Gitaal oo la rumaysan yahay in la afduubtay. mudanahan ayaa la waayay kadib markii shalay subaxdii hore gaarigiisa laga helay gurigiisa isaga oo madhan.
faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa arrintan waxaana saraakiisha ammaanka ay tilmaameen inaanay weli aqoonsanin halka loola kacay xildhibaanka baarlamanka ee deegaanka Juja. James Mugara oo ah la taliyaha booliska Kimambu ayaa sheegay in dadaal ay ugu jiraan helista iyo soo badbaadinta xildhibaankaasi. Master Gital ayaa markii cid ugu wardameysay waxa ay ahayd habeen hore 10kii subaxnimo oo waqti uu ka baxayay gurigiisa. waxaana uu sheegay inuu u socdo bangiga si uu lacag uga soo baxo. Qoyska uu ka soo jeedo mas'uulkani ayaan iyagu rajo weyn ka qabin inay helaan isaga oo nabad qaba halka laamaha ammaanka ee dawladda Kenya ay ku dadaalayaan sidii loo soo badbaadin lahaa mudanahaasi. waa tahay daawadayaal waxa intaas nagaga eeg wararkii aan idinka haynay bariga Afrika oo idin la socodsiinaya anigoo Igla Saalax. haatana u diyaar garoobo xubinta ciyaaraha warka Kalsan TV oo idin la socodsiiyo wariyaheena Mawlid Warsame Kulane.